kulan waxaan u wanaagsan idil hantiin baa khiyaarta hawada nagala socota ee isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal hor leh qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allaha awoodda la ogolaadana waxaa ka mid ah xogta heshiisyo lagu saxiixay Qatar iyo Xasan Sheikh oo gaaray Ruto Soomaaligii ugu horreeyay u magacaabay agaasimaha sirdoonka dowladda federaalka oo dalka ka ceerisay laba qof ajaaniba iyo sababta keentay iyo waliba sidoo kale dowladda Samakaab iyo Dhabanacaas oo maanta ay la wareegeen ciidamada SAC qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka sii sheegay haddii taa markii ugu horreysay soo booqatana fadlan subscribe dhoo gambaleelkana furo ku mahadsanidin aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar madaxweynaha ayaa waxaa caasimadda dalka Qatar ee Doha uga bilaabatay booqasho rasmi ah oo qaadanaysa muddo 2 maalmood ah sida ay saacisay madaxtooyada Soomaaliya Xasan Sheikh oo martiqaad ka helay amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamad ayaa waxa uu la qaadan doonaa kulamo ku saabsan kobcinta iskaashiga labada dal amniga iyo dhamaystirka hirgelinta heshiisyadii ay horey u galeen Soomaaliya iyo Qatar madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay saacisay in madaxda iyo diblomaasiyiinta kale ee ku helinaya safarkan madaxweynaha ay la siixan doonaan dhigooda dalka Qatar heshiisyo iyo safgarad ku qotoma danaha dalkeena madaxweynaha ayaa inta uu halkaasi ku sugan yahay waxay labada dal ka arrinsan doonaan iskaashiga dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha iyo waxbarashada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay villa Soomaaliya dhinaca kale ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in socdaalka madaxweynaha ee Qatar ay qayb ka tahay qorshaha ay dowladda taageero dhaqaale ugu raadinayso dagaalka culus ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab safarkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee madaxweyne Xasan Sheikh uu ku tago dalka Qatar tan iyo markii dib loo doortay 15 May ee sanadkii hore Qatar ayaa ka mid ah dowladaha Carabeed ee taageera Soomaaliya waxayna mashaariic kala duwan ay ka fulisaa gudaha dalka sida dib u dhiska wadooyinka iyo kuwa kale sidoo kale waxay xukuumadda Doha taageero fidisaa ciidanka Soomaaliya oo haatan sameynaya dib u kabasho kadib tababaro caalami ah oo ay heleen si kastaba Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waxaana dhawaan la filayaa inuu bilowdo wajiga labaad ee dagaalka kaasi oo qayb ka noqonaya dalalka dariska ee haatan la isku yiraahdo dalalka safka hore dhanka kale madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa maanta waxa uu magacaabay Nuruddin Yusuf Xaaji inuu noqdo agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo NIS madaxweyne Ruto oo isbedelo ku sameynaya hay'adaha dowladda ayaa waxa uu sheegay haddii magacaabistan uu meel mariyo baarlamaanka oo Nuruddin Xaaji bedelayo Philip Kameru oo lagu wado inuu noqdo howlgab Philip Kameru ayaa waxa uu ahaa agaasimaha sirdoonka Kenya ee NIS tan iyo bishii September ee sanadkii 2014 sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Kenya Ruto ayaa ku tilmaamay Kameru waxqabadkiisa NIS mid aad u wanaagsan isaga oo dalka ka caawiyay ka hortagga argagixisada dambiyada caalamiga iyo khatarta ugu weyn ee amnigeena Nuruddin Yusuf Xaaji oo madaxweyne William Ruto magacaabay agaasimaha NIS ayaa noqonaya Soomaaligii ugu horreeyay ee xilkaasi qabta haddii uu ansixiyo baarlamaanka Kenya wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah madaxda Soomaalida ee durba soo dhaweeyay magacaabistiisa ayaa waxa uu sheegay in Nuruddin Xaaji loo magacaabay booskii ku habboonaa mudane Xaaji kuma cusba hawsha loo magacaabay isaga soo noqday agaasimaha xeer ilaalinta guud DPP iyo agaasimo ku-xigeenka waaxda dambiyada abaabulan ee NIS ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Kenya waxaa kale oo intaasi sii raaciyay Xaaji waxa uu leeyahay khibradda laga maarmaan u ah mas'uuliyadda cusub ee loo igmaday isbedelkan uu maanta madaxweynaha Kenya William Ruto ku sameeyay hay'adda sirdoonka qaranka NIS ayaa qayb ka ah isbedelo uu ku sameeyay hay'adaha dowladda ee dalkaas Kenya dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka ceerisay 2 ruux oo ajaanib ah sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa talaabadan qaaday kadib markii uu ka codsaday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo isagu eedeyn culus u jeediyay 2 ruux xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa labadaasi ruux ku eedeeyay inay ku xadgudbeen shuruucda iyo xeerarka dalka xilli uu dhawaanahan u waday dabagal uu ku hayo ajaanibta dalka ku sugan
iyo shirkadahooda ka howlgala caasimadda. Labadan ruux ayaa lagu kala magacaabaa Jake Joseph Ochman oo u dhashay dalka Poland iyo Rafael Bernard Gihlig oo u dhashay dalka Jarmalka, sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Jake iyo Raf ayaa waxaa la sheegay inay ku xadgudbeen xeerarka iyo shuruucda dalka, isla markaana ay ka dhex bixeen anshaxa iyo dhaqanka diblomaasiyadeed. Si shaacsan ah looma sheegin waxa ay ku kiceen labadan ruux ee dhalasho ahaan kasoo kala jeeda dalalka Poland iyo Jarmalka, marka laga imaado inay ku xadgudbeen xeerarka iyo shuruucda dalka. Shalay bay ahayd markii xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu maxkamadda gobolka Banaadir u gudbiyay shirkad ajaanib ah oo lagu eedeeyay lacag dhaqid iyo canshuur la baxsasho. Shirkadaasi oo lagu magacaabo Automotive Management Service ayaa waxa uu sheegay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka inuu baaris ku sameeyay shirkaddan iyo maareeyaheeda xafiiska Soomaaliya kadib markii ay soo gaartay warbixin dambi oo la xiriirta shirkadda. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa sidoo kale waxa uu maxkamadda gobolka Banaadir ka codsaday in la soo mudeeyo dhageysiga dacwadooda si loogu gudagalo maxkamadeynta. Si kastaba, xafiiska ayaa shalay waxa uu digniin u diray dhammaan shirkadaha ajaanibta ee dalka ka howlgalaya, gaar ahaan kuwa aan hoggaansamin xeerarka iyo shuruucda dalka. Dhanka kale, waxaa maanta mar kale magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka dhacay dagaal kharaar oo u dhexeeya ciidamada SAC iyo weliba sidoo kale kuwa maamulka Somaliland. Dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu bilowday saaka baraqadii, xilli markaasi labada ciidan halkaasi ay isku farasaareen. Ciidamada SAC Khaatumo ayaa iyagu dagaalka bilaabay iyagoo markaasi rasaas goosa ku ridaya halkii ay ku sugnaayeen ciidamada Somaliland. Ciidamada Somaliland oo iyagana ka jawaabay ayaa iyaguna waxay markaasi soo fureen rasaasta iyo hubka noocyadiisa kala duwan, halkaasi uu ka bilowday dagaal kharaar oo u dhexeeya labadaas ciidan. Ciidamada SAC ee huwaanta xaq-u-dirirka ayaa iyagu maanta dagaalka halkaasi dib uga dhacay ka sheegtay guulo inay kasoo hoyiyeen, maadaama ay sheegeen inay dileen ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland halka kuwa kalena ay dhaawaceen. Sidoo kale, ciidamada xaq-u-dirirka ee SAC ayaa markaasi waxay sheegeen inay guud ahaan la wareegeen tuulada Samakaab iyo weliba sidoo kale Dhabanacaas oo ay shalay ku dagaalameen labadaas ciidan. Waxay sidoo kale carabka ku dhufteen inay sii baahsanayaan ciidamada Somaliland oo ay sheegeen inay ka carareen aaggii lagu dagaalamay si markaasi usii baahsadaan siina bursadaan ilaa ay kaga saarayaan markaasi guud ahaan gobolada SAC Khaatumo. Waa sidii hadalka u dhigeen. Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka maamulka Somaliland oo ku aadan dagaalkii maanta dib uga dhacay halkaasi iyo guulaha waaweyn ee ay kala sheegteen ciidamada SAC Khaatumo. Xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan, waxaana markaasi duleedka magaalada Laascaanood laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan oo u dhexeeya labadaas dhinac oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ku dhex maray dagaallo xooggan. Haddaba wixii kasoo kordho dagaaladaasi halkan ayaan kusoo gudbin doonaa hadduu Allah awood la ogolaado. Muuqaalkan muuqaal xigeentaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.